السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنالك مركز السود وهذا أدي هذا ومهتسنتهين maanta waa sabti waana 28 bisha saddexaad ee March sanadka 2026 muuqaalkan waxaan rabaa inaan idin kula wadaago Congress-ka Mareykanka labadiisa aqal oo fasax aaday kadib markii ay xalay iyo habeen horeba ay labada aqal ee sanadkii aqalka wakiilada ay meel mariyeen laba sharci oo isdiidan oo mid waliba ay doonayaan in lagu maalgeliyo wasaaradda amniga gudaha iyo madaxweyne Trump oo saxiixay wareegto mushaar lagu siinayo ciidamada TSA-da oo baara dadka ka dhoofaya eeraboorada Mareykanka dagaalka Mareykanka iyo Israa'iil ay kula jiraan Iran oo waji kala yeeshay kadib markii Xuutiyiinta Yemen ay shalay hanjabaad soo jeediyeen maantana ay si toos ah ay dagaalka u soo galeen ciidamo Mareykan ah oo ku dhaawacmay saldhig uu ku leeyahay Mareykanka Sacuudi Carabiya kadib markii ay duqeysay dawladda Iran isla markaana diyaaradaha halkaas yilay oo kuwa shidaalka siiya diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka hawada ku siiyana dhibaato ay ka soo gaartay TV-ga Iran oo baahiyay in diyaarad Mareykan ah oo kuwa dagaalka ah ay gantaal kula dhufteen Sacuudiga isla markaana muuqaal ay ka soo tuubeen Mareykanka oo qirtay markabka ugu weyn caalamka ee dagaalka ee diyaaradaha ximbaara ee USS Gerald Ford dhibaatada soo gaartay halka ay ka gaartay iyo sidoo kalena hadda halka uu ku sugan yahay warbixinadaasi oo idil ayaan doonayaa inaan idila socodsiiyo balse marka hore soo dhawaada cumrada sanadka waxaan ognahay maalmihii ugu dambeeyay in eeraboorada Mareykanka dhibaato weyn ay ka jirtay oo dadka dhoofaya ay safaf dhaadheer ay eeraboorada kala kulmayeen maxaa yeelay ciidamadii TSA-da oo hoostaga wasaaradda amniga gudaha ee loogu talagalay dadka eeraboorada ka dhoofaya inay baaritaan ku sameeyaan in ku dhawaad 500 oo kamid ah shaqada ay ka tageen maadaama muddo bil ka badan aysan mushaar helin sababta wasaaradda amniga gudahana maalgelinteeda in lacag la siiyo waxa diiday dimuqraadiyiinta oo waxa ay doonayeen in isbedel lagu sameeyo ciidamada ICE dib u habeyn iyo waliba kuwa CBP-da madaxweyne Trumpna horey waa kii ciidamada ay sidoo kalena ICE u geeyay eeraboorada isniintii la soo dhaafay ilaa iyo muddo maanta ku 6 maalmood ahna ay eeraboorada joogaan haddaba labada aqal ee Congress-ka Mareykanka ayaa laba sharci oo isdiidan xalay iyo habeen hore kala meel mariyay waxaa jirtay aqalka sanadka in habeen hore ay meel mariyeen sharci ay doonayaan in qaybo kamid ah wasaaradda amniga gudaha ay ku maalgeliyaan marka laga reebo ICE iyo waliba ciidamada xuduudaha ee CBP-da oo ay sheegeen inay doonayaan in isbedel lagu sameeyo taasi oo Republicaankuna ay si aad uga soo horjeedeen markii ay meel mariyeen waxa loo gudbiyay sharcigii sanadku ay meel mariyeen aqalka wakiilada sida sharciga sharci kasta waa inuu labada aqal maraa kadibna madaxweynaha loo gudbiyaa oo uu saxiixa marka shalay markii loo gudbiyay aqalka wakiilada afayeenka aqalka wakiilada Mike Johnson ayaa gabi ahaanba diiday sharcigii oo waxa uu yiri dimuqraadiyiintu waxa ay doonayaan in xuduudaha Mareykanka la furo mar kalena dadka sharci la'aanka aqalka wakiiladu inay sharci kale ay meel mariyeen sharcigaasi oo muddo 2 bilood ah wasaaradda amniga gudaha guud ahaanteedba lagu maalgelinayo ilaa iyo 22 bisha May ee shanaad ee soo socota sharcigaasi waxa ansixiyay 213 xubnood 203 xubnoodna waa ay diideen marka dimuqraadiyiinta ku jira aqalka sanadka waxay yiraahdeen sharcigaasi marka uu soo gaaro waa dead on arrival halkiisa ayaan ku diidi doonaa fasax ayuu hadda aaday aqalka Congress-ka Mareykanka oo muddo 2 toddobaad ah ayay ku maqnaan doonaan marka ay soo laabtaan haddana mar kale waa halkeedii ka bilow laakiin madaxweyne Trump ayaa shalay wareegto soo saaray oo awoodihiisa isticmaalay waxaana wasiirka cusub ee wasaaradda amniga gudaha Mark Wayne Millen uu ku amray in lacagaha gurmadka degdeg ah loogu talagalay oo wasaaraddu ay leedahay mushaar laga siiyo shaqaalaha TSA-da qaarkood oo markii horeba mushaarkoodu sanadkii $35,000 ah waxay yiraahdeen shaqadan shaqo aan ka sii shaqayn karna ma ahanba markasto oo labada xisbi ay isqabtaan dadka meesha ku baaba'aya waa anaga waxa la yiri laba maroodi haday istagaalaan cawskii ayaa meesha ku baabaa Soomaan waxay yiraahdeen markastaba anaga xuquuqdeeni ayaa lagu tumanaya qaarkood ba xitaa waxa laga yaabaa inaysan shaqada dib ugu soo laaban oo shaqooyin kale iska raadsadaan maxaa yeelay hadda raashinkii qutul daruurigii cirkaasi ayuu ku jiraa shidaalkeena cirkaasi ayuu ku jiraa marka madaxweynuhu waxa uu yiri laga bilaabo isniinta waa in shaqaalaha TSA-da mushaarkoodii la siiyaa marka haday shaqada ku soo wada laabtaana waa la arki doonaa iyo waliba hadii kale dhinaca kale dagaalkii Mareykanka iyo Israa'iil ay kula jireen Iran ayaa waji kala yeeshay shalay Xuutiyiintu waxa ay soo direen hadallo digniin ah oo ay leeyihiin hadii 5 qodob ay soo baxdo dagaalka waan ku beerayna oo ay kamid ahayd in hadii wadan saddexaad uu ku biiro dagaalka Mareykanka iyo Israa'iil ay kula jiraan Iran iyaga xitaa Yemeniinta in cunaqabataynta laga qaado in sidoo kalena
ayna adiga ilaa iyo 5 qodob oo kala duwan ayay soo direen maantana waxay bilaabeen inay gantaalo ku soo tuuraan Israa'iil waxay Israa'iil sheegtay inay gantaaladaas iska qabatay laakiin hadda waxaa halis ku jira marinka Babul Mandab oo sidoo kalena ku xiran kanaalka Suez oo ku yaala Masar marka haddii uu xirmo Babul Mandab mar kale oo xuutiyiinta ay xiraan arrintaasi waxay noqonaysaa in caalamka dhinaca tamarta ama shidaalka ay gabaabsi ku noqoto hadda wadamo fara badan oo ay ka mid yihiin Malaysia Sri Lanka Bangladesh Hong Kong waxa ay bilaabeen oo inta badan wadamada Asia ay shidaalkii la beeqaamiyo la yiri xitaa gawaarida ama in la gaadiidka dadweynaha hala raaco oo gawaarida hala iska dhigo yaan la shidin qaboojiyaasha adii waxyaabo fara badan oo shidaalka lagu beeqaaminayo ayay bilaabeen waxaana sidoo kale Iiraaniyiintu gabahaanba u xiran sidaan ognahay marinka Hormuz oo ilaa 18 markab ayay weerareen maraakiibta qaarkoodna waxay yiraahdeen doonaya inay maraan lacag 2 milyan oo dollar waa inay bixiyaan ilaa hadda 2 markab ayaa bixisay ayaa la leeyahay lacagtaasi waxayna ugu tala galeen qayb wareega oo ay leeyihiin sida sawirkan aad ka aragtaan qaybtaasi ayaad maraysaan Trumpna sidoo kale mar kale 10 maalmood ayuu haddana Iiraan u qabtay markii hore waxaan ogeyn in uu u qabtay 48 saac 5 maalmood ayaa ku xigtay haddana waxa uu leeyahay laga bilaabo 6 bisha soo socota ee Abriil oo Isniinta soo socota ku beegan 8 fiidnimo ayaan u qabtay Iiraan si aan u burburiyo goobahooda tamarta wadahadallo ayaa socda wadahadalladaasi Iiraan ayaa iga codsatay ayuu leeyahay 10kaasi maalmood waa sida isagu uu sheegayo laakiin Iiraan waxay leedahay wax wadahadal oo noo dhaxay annaga iyo Mareykanka maba jiraanba arrintaasi waa ay diiday wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka oo shirka wadamada G7 magaalada Paris ee caasimadda Faransiiska uga qayb galayana waxa uu sheegay in ayagoo ciidamo aan geynin dhulka ah Iiraan in dagaalkan ay ku guuleysan karaan laakiin hadda ciidamo u dhaxeeyo 10,000 ilaa 7,000 ayaa bariga dhexe ku sii socda ciidamadaasi halkay ku socdaan waxaana sidoo kale uu yiri wasiirka arrimaha dibadda dagaalkan waxa uu sii socon karaa oo hadda maanta bil buuxsaday 2 ilaa 4 toddobaad oo kale ayuu sii socon karaa sidaas ayuu leeyahay marka waxa jirta hadda ciidamada Mareykanka saldhigga ay ku lahaayeen dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya in Iiraan ay mar kale weerarto waxaan filayaa markii saddexaad mise waa markii afraad oo ay weerarto waxa ku dhaawacmay ilaa iyo ciidamo gaaraya 15 oo la leeyahay 5 ilaa 3 kamid ah dhaawacoodu waa halis diyaaradaha kuwa sida Tangriska oo shidaalka qaada isla markaana diyaaradaha dagaalka hawada ku siiya shidaalka ayaa sidoo kale dhibaato ay soo gaartay mana ahan markii ugu horeysay oo diyaarado halka ay saldhiggaasi ku gaarto Mareykanka ilaa hadda intii dagaalkan uu socday oo bil ah 303 askari ayaa uga dhaawacantay dhimashada ay qirteenna waa 13 sidoo kale telefishinka Iiraan ayaa waxa uu baahiyay muuqaaladan oo arkaysaan oo leeyihiin gantaalkan waxaan ku dhufanay diyaarad dagaal oo Mareykanku uu leeyahay oo ah F-16 waxaana lagu soo dejiyay iyadoo waliba dhaawacan airport ku yaala Sacuudi Carabiya ilaa hadda sheegashadaasi ma jirto ila madax banaan oo cadeeyay Mareykankuna ma uusan qaran laakiin dhinaca kale waxaa jirta in Mareykanku markiisii ugu horeysay uu qiranayo markabka ugu weyn dagaalka oo Mareykanku uu leeyahay oo waligii la sameeyo oo diyaaradaha ximbaara oo la yiraahdo USS Gerald R. Ford in dhibaato ay soo gaartay markabkan qiimihiisu waa 13 bilyan isla markaana gabi ahaanba dagaalka Mareykanku uu kula jiray Iiraan waa uu isaga baxay kadib markii qaybta ciidamada dharka ay ku dhaqdaan ee laundryga ay gantaal dawladda Iiraan ay uga dhufatay 12kii bishan March oo hadda sii dhamaanaysa waxa la leeyahay muddo maalmo ah ayaa ciidamada saaran qaarkood dhulka ay seexanayeen isla markaana markabka gudihiisa qiic fara badan ayaa gudihiisa ku jiray oo maalmo ayuu gubanayay markabkaasina hadda gabi ahaanba dagaalka waa laga saaray markabkan oo la yiraahdo USS Gerald Ford waa markabka ugu weyn ee caalamka ee diyaaradaha xambaara ee dagaalka oo waligii la sameeyay waxaana hadda qasab ku noqotay inuu isaga baxo dagaalka isla markaana sida uu qoray wargeyska New York Post markabkan muddo sanadahba waxa la leeyahay dhibaatooyin fara badan ayaa haystay ilaa iyo sanadkii 2020 waxaana inta badan uu ka haystay qaybo kala duwan oo dayactiro lagu sameeyay ilaa iyo 4 milyan oo dollar ay ku baxday qaybaha dhibaatada ugu badan ka jirto waxa kamid ah dhinaca suuliyada ama musqulaha oo aan la falaashi karin isla markaana sidoo kalena markasta oo la falaasho aysan suulidii waxyaabihii lagu riday aysan ka baxaynin sanadkii 2020 xafiiska la xisaabtanka dawladda warbixin uu soo saaray ayaa waxa lagu sheegay in markabkan uu u baahan yahay joogteyn in markastaba
maintenance in la hagaajiyo maalin kasta ilaa iyo $400,000 ayaana ku baxay. senatarka laga soo doorto Virginia oo la yiraahdo Tim Kaine ayaa waxa walaac ka muujiyay horaantii bishan in markabkan markastaba qaybaha sewage-ka ee waxyaabaha wasaqdu ay maraan marka suuliyada lagu xaajoodo in ciladi ay ka haysato. sidoo kalena waxaa jirta in qaybaha laundry-ga sidoo kale dhibaatadu ay ka jirto, iyadoo sidoo kale markabkan bariga dhexe hadda ciidamada Mareykanka uu taageeraya dagaalkan uu ku jiray, isla markaana gabi ahaanba hadda laga saaray markii dhibaatadaasi ay soo gaartay. waxaa sidoo kale qoysaska ciidamada saaran markabkaasi ay leeyihiin dhibaatooyin dhinaca fara badan oo dhinaca neefsiga oo xitaa markabka gudihiisa hadda waa uraya ayay leeyahay oo aan lagu neefsan karin in dhibaatadaasi ay ka jirto. markabkan qiimihiisu waa $13 bilyan, haddana waxa uu la'yahay waxyaabaha aasaasiga ee lagu noolaan karo markabka gudihiisa ayaa cilada ay ka jirtaa. sidoo kalena warbixin ciidamada badda ee Mareykanku ay soo saareen ayaa waxay leeyihiin dhibaatadu waxay ka jirtaa dhinaca suuliyada iyo qaybta sewage-ka oo sidoo kalena waxyaabaha wasaqdaasi ay maraan ilaa iyo ciidamo 4,000 ka badan ayaana markabkaasi saaran. waxaa sidoo kale jirta in 12kii bishan Iiraan ay gantaal la heshay markabkaasi, weliba qaybta dhinaca laundry-ga ayay gantaalkaasi ay kala heshay, dhibaato ayaana soo gaartay. waxaana taasi ay sababtay in markabka gudihiisa xitaa aan lagu noolaan karin oo aan lagu neefsan karin. waxaa sidoo kale jirta in ilaa iyo 400 oo ciidamaha oo markabkaasi saaran muddo maalmo ah ay dhulka seexanayeen, isla markaana sidoo kalena ay hadda qaadanayso in markabkaasi la dayactiro sanad amaba ka badan. markabkaasi ayaa maanta oo Sabti ah waxa uu ku xirtay jasiirad la yiraahdo Split oo ku taala wadanka Croatia, halkaasi oo lagu dayactiri doono. marka markabkii ugu weynaa ee dagaalka ee Mareykanka Iiraan gantaal ayay ku dhufatay, dhibaatadaasi ayaana soo gaartay sida hadda ay dowladda Mareykanku ugu dambeyntiiba ay qiranayso, isla markaana warbaahinada qaarkood ay soo tabinayaan. marka arrimahaasi ayaan rabay inaan idila socodsiiyo asxaabay. intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin Cilmi Waaro idin la sida iyo nabadgelyo.